السلام عليكم. soo dhawaada maanta tradeka waxaan fiiri doonaa labadii trade aan xalay qaadanay oo kala ahay euro AUD iyo AUD USD iyo sidii ay ku dhacday in aan tradeada wada xirno ayagoo targetkooda inuu gaarin. markii koowaad tradeka aan soo diray wuxuu ahay AUD USD oo aan yidhi buy, bartas ayaa buy ka galnay, laakiin halkaa hoose ayaa laga rabay inaan buy kusoo qaadano. marka 10 pips away from entry ayay ahayd, maadaama saas ee dhacday stop loss keenana wuu weynaayo 20 pip ayuu noqday. maan rabin stop loss oo lacagtan special inay 20 pips sii noqoto. markii laga soo tago tradeka asigoo targetka gaarin maxaan u xirnay, wax sabab waxay tahay lacagtan aan iskula jirno waxay ahayd euro AUD oo ayadana correlation aan ka raadinaynay oo sell aan u galnay, taasna buy aan u galnay. marka waxaa dhacday in correlationkii meesha ka baxo oo euro AUD buy ay sii aado, AUD USD na buy ay kusii socoto. marka tanna minus maadaama ay nagu hayso, tanna plus ay nagu wado, suuqana xilli dambe oo yani maalin dambe iska tahay oo jimco ah oo wax hore uu samayn karo. waxaa jeclaystay in aan losskayga yareeyo saa ku yareyn karo, kadibna profitkayga aan badiyo. marka sidee loosku yareyn karaa? looska waxaa ku yareyn karaa inaan jiro AUD USD oo 16 pip ahay, kadibna aan jaro minuska igu socday oo euro AUD oo 20 pip ahay. marka overall ani waxaa ku jiraa -4 pips. imagine 2 trades aa qaadatay, labada trade waxaa ku jirtaa -4 pips. waa something wonderful. that's why aan mar walba aan u dhaho like risk reward ratio waa waxyaabaha ugu fiican aad guul ku gaari kartid. hadda tradekan sa arki karno profit ayuu ku socdaa oo fiican 36 pip, targetkeena waxaa ahay 75 pip. dhib ma lahan, next time ka badan. trade kale waxaa jira asiga markaasaa usoo kacay oo codka aan idin soo diray aan arkay oo euro NZD. wow, targetkii uu gaaray waxyar aa kaga dhimay. tradekan asigana waa habeeyey oo waa arkayay, laakiin maan rabin inaan ku degdego because last day of the week ayay ahayd. so ma rabi isbuucayga quruxda badnaa, isbuucayga faa'iidada badnaa, isbuucayga tayada lahay inaan spoil gareeyo. what if selkan meesha aan ka filayo oo jiri weey oo yani tradekii kor u sii aadi lahaa, stop loss iga dhaca, taas hadhow waxaan ii taalo shalay aan galaya, meesha shalay aan galaya ruleskayga aan jibilaya. mar walba waxaa iga wanaagsan ruleskayga inaan raaco. marka trade saas ayuu ahaa. insha allah isbuuca dambe ayaa noo balanaa setupyo, trade ideas iyo signals kulli oo soo wada diri doonaa. make sure asxaabtaada inaa linkiga u wada dirtid. insha allah group markuu sii weynaanayo obvious intifaaca lagu dhibayo inuu sii weynaanayo. marka saas ayaa noo balanaa. wassalaamu calaykum waraxmatullahi taala.